kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaan meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada waraysi kooban oo aanu la yeelan doono Corneyl Cabdikariin Maxamed Axmed oo loo garan og yahay xaaji oo asagu jooga magaalada Laascaano askartii saaka dagaalka ka qayb gashayna kamid ah waxaan wax ka weydiin doonaa dagaalkaas sidoo u dhacay iyo wixii khasaare ka oo sababay intaba xog fara badan lagama hayo qolo walba guul bay sheeganaysaa bal marka hore Cabdikariin intaan soo dhaweynin waxa xusid mudan sidoo kale afhayeenka ciidamada Soomaaliland militariga inuu hadlay oo lagu magacaabo Cabdi Cabdullaahi Xasan Cabdi Dheere oo uu sheegay laftigiisu inay weerar qaadi doonaan qorshaysan Cabdikariin may maqashaa marka hore xagee haatan ku sugan tahay hadda waxaan ku sugnahay jiida hore oo bariga ku sugnahay waayahay dadka aan garanaynin jiida hore bariga ama juqraafiga aan la soconin magaalada iyo agagaarkeeda u tilmaan waxa weeye meelihii ay iyagu fadhiyeen oo kontaroolka bariga iyo waxa ka shisheeye ah iyo boorihii iyagoo ay saarnaayeen gooja cadda kusii jeeda aagaasaan ku sugnahay waayahay Corneyl sidee ayuu dagaalku saaka ku bilowday dagaalka nimanka iyaga weerarka saaka soo qaaday hadday soo qaadeenna waan isku celinay wayna ku jabeen dhimasho iyo dhaawac oo meesha way kala tageen baabuur waa ka qabsannay kuwana waa ka gubnay ayagaa ku sugnaayeenna annaga hadda joogna oo tirisadeedu annaga fadhin hadda waayahay intaan imaanin waxa la kala qabsaday iyo khasaaraha dhacay meesha aad ka qabsateen oo sheegaysa waa xagee magaceedu waa maxay niyo dagaalku wuxuu ka dhacay 3 meelood xagga waqooyiga iyo xag mataqaanaa magaalada xagga bariga iyo u dhaxaysa iyo waqooyiga oo ciidamo SSC ay joogaan ay weerar ku soo qaadeen xagga galbeedka ayaa mataqaanaa khasaaraha ugu weyn oo kaga dhacay barigana oo ku soo qaadeen iyagana halkana khasaarahan aad iyo aad ayaa kaga dhacay oo mataqaanaa ay ku jabeen marka nimankaas iyaga 3 goobood bay naga soo weerareen 3 gooboodna waa ku jabeen magaratay waayahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo waxaa igu maqaalaa in 4 jiha dagaalku saaka uu ka bilowda adigu 3 baa sheegaysaa maadaan ka warqabinin mise macluumaadka ayaa khaldan neo 4 jiho uu noqon karaa oo mataqaanaa wajahada bariga ayaa 2 meelood noqon karta anu hal meel unba kaaga soo qaaday marka waa adigu jahadaas bariga waa hal jiho un weeye iyo 2 jiho oo kale 4 jihona way noqon kartaa bariga 2 jihona way noqon kartaa 1 jihona way noqon kartaa adiga bariga wajahadaas ciidamada SSC ay fadhiyeen oo dagaal ku soo qaadeen halkaas dagaal baa ka dhacay 2 jiho oo buurta cusbitaalka ka sii rogan ciidamada SSC ay fadhiyeen weerar bay ku soo qaadeen kuwa xagga waqooyiga fadhiyeen weerar bay ku soo qaadeen intaas ayaa dagaal ka dhacay magarat waayahay meeqa saac waa dagaalku markuu bilowday waqtiga maxaa ku qiyaasta niyo saaka aroornimada ay nimankaas la soo weerareen 6 bakhnimo joogsaday adiga ilaa mataqaanaa 8 meelahaas ayaa dagaalku bilowday magarat 6 miyuu bilowday mise 8 maya adiga dagaalka xoogiisa 8 bilowday adiga markii ugu horeysay 7 meelahaas hal saac ayuu mataqaanaa soo bilowday laakiin dagaalka xoogiisa 8 bilowday marka ilaa iyo maqribkii soconay afhayeenka ciidamada Soomaaliland oo hadlay wuxuu sheegay in ay ciidamo fara badan ka soo qulqulayaan maamul goboleedka Puntland iyo kuwa argagixisa iyo huwan maxaad arrintaa uga jawaabaysaa argagixiso iyaga ah ana argagixiso manihin waxaan nahay ciidamaha hawtigira oo wadankooda daafacanaya oo dhulkoodii lagu haysto oo Muuse Biixi iyo argagixisooyin uu wato al-shabaab isaga nagu soo weeraray dhulkayagii isaga nagu soo weeraray
deegaankayagii isagaa mataqaanaa dhurwaaya oo waraabe mataqaanaa cid kasta wata isagaa ah isagaa mataqaanaa argagixiso hoosta ku wata waa kuwa hadda la jooga oo nala dagaalamaya al-shabaab baa ku jira wax badan mataqaanaa oo ilaa galbeed ayaa ku jira marka annaga argagixisa ma nihin waxaan nahay dadka waddanka u dhashay oo waddanka lahaa oo dhulkoodii lagu haysto oo guryahayagii la gubayo oo maatadayadii caruurahayagii mataqaanaa lagu leynayo madaafiic annaga waxaan nahay xaqudirir waxaa laascaanood ka dagaalamayaan waa dadkii dhulka lahaa weeye reer laascaanood iyo reer mataqaanaa sool weeye marka waxaas waxba kama jiraan annagu al-shabaab meeluu joogo ma naqaanin al-shabaabna ma nihin waxaanu nahay dad soomaaliyeed waxaanu nahay dad mataqaanaa SSC ah waxaanu nahay dad dhulkoodii lagu haysto waxaanu nahay dad mataqaanaa dee muuse biixi uu ku haysto dalkoodii uu ku haysto waa nahay waayahay haddii aynu usoo gudubno khasaaraha iyo waxa la kala qabsaday oo aad sheeganaysaan idinku hadda adaan nala jooga dhinaca kale guul bay sheeganayaan argixisada inay iska celiyeen bay sheeganayaan in dalka la xoreynayo idinku maxaad idin soo gaaray khasaaro maxaad goobjoog u ahayd annaga khasaaro kasta oo na soo gaara diyaar baan u nahay maxaa idinka soo gaaray khasaaro dagaalkii saaka khasaare annaga nama soo gaarin wax mataqaanaa dhaadhaawac iyo qoof dhimashaa uma joojinayno haddii xitaa malaayiin ay naga dhimato wax muraado aqalena ma jirto waa dad noo shahiiday weeye waa dad dhulkooda daafacanaya weeye ma aha waxaan anagu la cabanayno ilaahi subxaana watacaala ula cabanaynaa cid kale ula caban mayno waxaanu nahay dad xaqudirida oo dhulkoodii lagu haysto waa nahay waana iska celinaa waxa dhulkeeda lagu haystaa muuse biixina waxaanu kala qaadanaynaa war cad baan kala qaadanaynaa maxaad ola jeedaa war cad baan kala qaadanaynaa waxaa loo jeedaa waxaanu nahay dad dhulkooda lagu haysto oo laga gardaran yahay oo khasab la leeyahay aan waddankiina idinku xukunno annana ma yeelayno 15 sano ayuu ninkaas ciqaab nagu haystay dadkayga leynayay aanu aamusnayn hadda laga bilaabo oo intii mataqaanaa anaa kacdoonka aan samaynay wax ogolaanshaa ama wax xukuumada oo aanuna musabixi u hayno ma jirto haddii nabadgelye inuu nabadgelye nagaga tago baanuu jecelnahay waayo dad dariskaaga bay ahaayeen dad mataqaanaa anagu dhibaatadooda ma jecin nin kasta waddankiisa isaga haysta isaga xoro ah waayahay anagu haysteen unmayno waayahay khasaaraha dagaalka ka dhashay baan ku weydiiyey waxaan jeclahay mar kale ku xasuusiyo maxaad khasaaraha dagaalka ka dhashay oo adigu aad goobjoog ahayd dhinaciina aad la socota annaga khasaare mali dhowr qof oo dhaawac ama khasaare anoo malihin khasaare anoo malihin khasaarena ma yeelan doono insha allah wax kasta oo khasaare iyo dhibaato ayay ku dhacaysaa waayahay waxaa igu maqaalaa kale bulshada rayidka inay waxyaala ka soo gaartay maxaa kala socota ayaga bulshada rayidka oo reer laascaanood wixii wax soo gaara waa reer laascaanood waxa dagaalamayna waa reer laascaanood weeye waayahay haatan maxaa idiin qorshaysan saacadaha soo socda inuu dagaalkii joogsaday baan war u hayaa inta hadda fiidka talaawiixda la tukanaya maxaa idiin qorshaysan aad is leedahay waagu waa idinkugu baryayaa iyadoo bil rabadaan lagu jiro dhiigga shacabku daadanayo soomaali dirirayso colaad iyo dhiig daadanaya maxaad idiin qorshaysan arrimahaas markaad eegtid annaga qorshaha ilaahay baa iskale subxaana watacaala qorshaha annagu ilaahay baa og wixii qorsha ah annagu dhibaato ma doonayno waxaan jecelnahay maamulka muuse biixi inuu nabadgelyo nagaga tago annagu jecelnahay dhibaatadu ma doonayno laakiin haddii ay mataqaanaa iyagu ay diyaar u yihiin diyaar baan u nahay
waxay diyaar u yihiin baan diyaar u nahay waayahay controlka gooja caddeeya hadda maamula gooja cadde waa meel ay ciidamadu isdeganaayeen weeye anana in yar baan hadda u saarannahay hadduu nabadgelyo kaga tegi waayana nabadgelyo la-aan buu kaga tegayaa waayahay cornel ugu dambeyntii gartay dagaalka idinka dhexeeya adiga iyo xukuumadda ciidamada ka socda muuse biixi wax fursada oo nabadda iyo kala dambeynta iyo bulshada in loo turo aad xeerinaysaan ma jirta waxaan umaleeyaa inay soo dhammaatay horaa looga wada hadlay wuxuu xeerin waayey anana xeerin mayno wax badan baan xeerinay derisni baan xeerinay tolni baan xeerinay wanaag baan xeerinay laakiin isaga ma xeerin marka wuxuusan xeerin dib u xeerin mayno waayahay korneyl cabdikariin maxamed axmed oo ku magac dheer xaaji waa ku mahad celinayaa daawadayaal waraysigan ayaa wuxuu imaanayaa xilli saako oo 26kii bisha 3aad 2023 mar kale qarax iyo dagaalla ay ka qarxeen dowladka magaalada laascaanood ilaa ay haatan burid Somali TV eedaha iyo guulaha la kala sheeganayo ma xaqiijin karno bil Ramadaan baa lagu jiraa dhiig baa daadanaya waxaana arrintan imaanaysaa iyada oo markaas nabadoono koonfurta Soomaaliya ka soo boqolay ay soo gaareen maamul goboleedka Puntland la rajeynayna laascaano iyo weliba Hargeysa inay dhawaan tagaan si nabad loogu soo dabaalo colaadda halka ka jirta dhanka kalena ciidamada Soomaaliland ay sheegeen dulqaadkii inuu dhamaaday malishooyin iyo argagixiso iyo ciidamo kasoo qulqulaya maamul goboleedka Puntland iyo huwana ay la dagaalamayaan meesha shacabka reer laascaano iyo jamaahiirtu ay leeyihiin waynu isdifaacaynaa dadkeena iyo dalkeena ayaa lagu yahay weerar waasay hadalka u dhigeen nabadgelyo